saraakiisha la leeyahay saddex ciidan bay isku maamulaan waa ciidankii badda oo reer u badan waa ciidan beeleed waa ciidamada ajaanib oo loogu soo marmarsiyoodo biraha ka shaqeeyaan saddexdaaba nin baa isku maamula 13 ka dhacday ka dambeeyay ee afduub leh ee jidgoyn leh ee rasaasayn leh ee gaadiid la hor istaagay leh ee geel la dhaca leh ee ragii geelooda la dhacay laba casho kadibna la rasaasiyay la handaday leh ee warbaahinta waxa weeyaan maaga iyo dagaalka iyo cayda ka soconaya leh Turwaana waxba kama qaban dawladina waxba kama qaban waxaanuna ka hadlaynaa dhacdadii ka dhacday xaad iyo hareeraheeda iyo aageeda xaad wixii ka dhacay haddii markii hore lagu kulmay oo dahabsi ku kulmay oo la isku qabtay guurtidii habar yoolshe timi iyo kuwii iyo dawladuba go'aan bay ka soo saartay waxay ka soo saartay gudoonkii ay ka soo saartay waxay ka soo saartay qolana inay ma tagtaa walana tagtaa wadaagsi wax dahabsina aan laga qaban wax alla shruus waa waayeelkooda iyo xukuumadda oo cid u dirtay ayaa halkaa tagay waqtiga kulanka halkaa iyo fadhiga halkaa laga yeeshay horta waxa ka soo baxay xukunkii ka soo baxay baa labada reer la xukumay wixii labada reer lagu xukumay annagu ka mas'uul ahaan waa qaadan xukuumadda iyaba nagu xukuntay iyo habar yoonis waa qaadan jibriil tuuwa wuu beeniyay wuu diiday inuu qaato arrinka wuu diiday halka عقال مدح dhaqameed iyo waliba mas'uuliyiin kala duwan oo ka soo jeeda beelweynta Turwa ee degta gobolka Sanaag ayaa waxay ka hadleen colaad dhawaan ka dhacday deegaanka Xaad ee waqooyiga degmada Ceerkaabo waxayna mas'uuliyiintan iyo waliba cuqaashani ay xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyeen in ilaa haatan aan waxba ka qaban colaadaasi sidoo kalena waxay mas'uuliyiintan iyo waliba madax dhaqameedkan kala duwan ay ku eedeeyeen colaadaasi inaanu dhax ka ahayn wasiirka wasaaradda horumarinta deegaanka Soomaaliland iyo waliba taliyaha ciidamada badda ee gobolka Sanaag waa sidee hadalka u dhigeen بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين halkan waxaanu ku qabanaynaa kaliib annagoo ah beesha Muuse Saalax waxaanu maanta halkan ku qabanaynaa kaliibkayaga aanu halkan ku qabanaynaa waa warbixin aanu ka warbixinayno dhacdooyinkii istaba joogga ahaa ee ka dhacay Xaad iyo agagaarkiisa warbixinta waxaanu siinaynaa cid kasta oo aan xogogaal ahayn ee arrinka xogmooga ka ah ayaan warbixinta siinaynaa warbixintaasi waxa kow ka ah arrinkaasi halkaa wuxuu ka dhacay Xaad wuxuu ka dhacay bishii labaad 5 ilaa 6 ayuu Xaad ka dhacay halkaa waxaa ku kulmay inama dahablayaal oo buuraha dahab ka qodanayay markii inamaas isku dhaceen waa looga gurmaday gobolka waa looga gurmaday waayeelka aan habar yoonis iyo Muuse Turwa iyo Jibriil Turwa waayeelkooda iyo xukuumadda oo cid u dirtay ayaa halkaa tagay waqtiga kulanka halkaa iyo fadhiga halkaa laga yeeshay horta waxa ka soo baxay xukunkii ka soo baxay baa labada reer la xukumay wixii labada reer lagu xukumay annagu ka mas'uul ahaan waa qaadan xukuumadda iyaba nagu xukuntay iyo habar yoonis waa qaadan jibriil tuuwa wuu beeniyay wuu diiday inuu qaato arrinka wuu diiday halka markii mareysay ayaa dhacdadii labaad taan ka warbixinayna waa qabla almeyd macnaheedu waa intaan ninku dhiman dhacdadii labaad ayaa buurihii la isugu soo noqday halkii baa rabash dambe iyo qaaqul dambe ka dhacay halkaas geeridu ka dhacday oo inankaas ku dhintay markii inankaasi halkaa ku dhintay ayaa haddana dib loo dhaadhacay xukuumadda iyo waayeelkiiba haddana dhaadhacay waayeelka habar yoonis iyo waayeelka labada reer ee sayaba iyo habar yoonista kaleba waayeelkeedu iyo xukuumaddu waa dhaadhacday halkaas haddana xukun dambe ka soo baxay xukun dambe oo xukuumadda iyo waayeelku gaareen baa halkaa ka soo baxay xukunka dambe halkaa ka soo baxay annagu ka mas'uul ahaan waa qaadan Jibriil Turwa halkii kama qaadin xukuumad ku fulisana
oo xukuumadda soo baxay ku fulisana waanu weyn waa la waayay xukuumadda gobolka joogta hadday wasiiradii hore yimi ahayd iyo hadday ka dambe jooga ahayd midna fulin kamaanaan helin iyo hadday barasaabka gobolka jooga tahayba midna fulin kamaanaan helin markay labada dhacday ayaa waxa ka daba yimi dhacdooyin badan oo istaba jooga oo xagga Jibriil Turwa ka yimi kow jidgooyay galeen oo gaadiidkaygii iyo hantigaygii noo socday wadada mareeyay jidgooyay galeen celiyeenba dhacdada halkaa ka dhacday waxba lagama qaban 3 nin baa loo soo xidhayo 3 nin laba hel ma xidhnay markii waa la sii daayay barasaabka iyo wixii la mid ah baa sii daayay waa dhacdadii saddexaad dhacdada afraad iyo ta shanaad iyo ta lixaad saddexduba Jibriil Turwa bay haddana ka timi saddexduba xukuumaddu waa u dhacday midna waxba kama soo qaban warbixinteedu haddaba waxay tahay waanu meel dhowba gaarsiinayna arrinkaas xukuumadduna waxba kama qaban waayeelkii reerka Jibriil Turwana waxba kama qaban midda kale dhacdooyinka istaba joogga ah ee iska daba yimi ee halkaa ka dhacaya ee ninkii wax geystay joogo kii dhacdada hore geystay kii tadambe geystay kii tadambe saddexaad geystay joogo dumuuji wax looga qaban waaye xukuumadda is weydiinaysa intaa waxaa noo raacda wax loo qaban waaye waxa kow ka ciidanka meesha joogay meesha la geeyey ee leeyahay waa dhexdhexaad horta waxa xukuma waa ciidanka Mareyniska taliyaha xukuma waa Jibriil Turwa hadduu taliyahaasi daacad ka yahay oo wax ka qabanayo hadduu waaye gacan ku dhiigli dhacdooyinka kale cidii geystay ma waayeen waana qoyskiisa wala tilmaama waxaanu leenahay oo hadalka ku soo gabagabeynayna annagu maanta iyo maalintii dhacaasu dhacday intii ka dambeysay iyo maanta inta u dhaxaysa yoom min ayaam qof meel taagan iyo mid qorishita iyo mid hadlaya toona lagu arag maanta waxaanu ka hadnaa nagoo beesha Muuse Saalaxa waxaanuna ka hadlaynaa dhacdadii ka dhacday xaad iyo hareeraheeda iyo aageeda xaad wixii ka dhacay haddii markii hore lagu kulmay oo dahabsi ku kulmay oo la isku qabtay guurtidii habar yuusuf timi iyo kuwii iyo dawladuba go'aan bay ka soo saartay waxay ka soo saartay gudoonkii ay ka soo saartay waxay ka soo saartay qolana inay ma tagtaa walana tagtaa wadaagsi wax dahabsina aan laga qaban wax allaale wax dahabkii nooyi Musatura u yeelo cali ka taga sidaas aanu kaga dhaqaaqnay wixii Musatura halka laga soo saaray habar soo saartay uu qaatay Jibriil Turwana ma qaadan dawlad qaadsiisa oo fulisana lama arag haddii tii dambe meeshii la isku soo noqday meeshii shaqada ba ka dhacday dil baa ka yimi geeridaa ka timi bisna waa la isku tagay taana waxa laga soo saaray in laga baxaa xad ciidanka Jibriil Turwana ka baxaa ciidanka Musaturwana ka baxaa ciidankii Musaturwa waa ka baxay go'aankii habar soo saartay iyo kii dawladdu soo saartay waa qaatay Jibriil Turwa ma qaadan sidii buu ku yaalaa Jibriil Turwa alaanka hadday habar yuusuf hal laga baxna dawlad fulisa mehdi waxa kala dhacday ciidanka madaniga ah ee Jibriil Turwa iyo ciidanka badda ee Mareyniska ciidamadu dawladdu wasdhex fadhiya waana isku gacan waxana wada xukuma taliyaha badda ee Bebeej ka Jibriil Turwana usaga xukuma waa sarkaalkiisii aba kama soo qabto wax ka qaban daaw habo ka qaban laha kam Mareyniska usaga xukuma kam Mareyniga ee reerkan usaga xukuma waxa taa u dheer mid kale oo la yiraahdo orma oo fadhida oo godadka iyo dalka lagu haysto wixii halka ka dhacay dawladda xukuumadda Soomaaliland ee gobolka iyo heer qaran haday tahay midna waxba kama ay qaban Jibriil Turwa waayeelkiisuna waxba kama qaban toddoba dhacdo oo ka dambaysa waa hawsha ka dhacday
wixii ka dhacay intaa haddaan anagu musatur waan nahay waa sugayni waa u fadhini xukuumaddaanu sugayni habar yoonis baanu sugayni wax qalaan qala iyo wax ka aarsi ah iyo wax ka midna kama duwan maantana waxaanu isnidhi ummadda ogeysiiya Somaliland ogeysiiya dawladda ogeysiiya wixii hawsha ka warma qabtaa intaa ina fadhideen xukuumadduna aan waxba ka qaban ta gobolka iyo ta qaranka toonna u sheega baa halkaa maantana aan la hadalnay ayaan dhawood waanu isu nimi waxbaanu qabanaynaa dawladda Somaliland waa dhaadhacaynaa annagaa wax ka qabanaynaa ilaa mersooyinka waa ka qaadaynaa waxbay ku sii kordhisay waxba kama qaban xaad intay ka qaaday tuulada xaad bay meel lamada dhigtay oo ceelkii xoolaaba ah oo magaalada kale u samaysay oo gaar ah dhamayn hadalkii laakiin uu saddex qodob baan odhanayaa saddex qodob waxay tahay heer gobolka dawladda joogta iyo heer qaran cid dhacdada halkaa wax ka qabatay cid fidmo ku sii kordhisay mooye cid wax ka qabatay ma jirto ha u weynaado wasiirkii deegaanka ee geeljire iyo hoggaankii la socday fidmada halkaa ka jirta iyo agaasimayaashii ciddii halkaa maraysay fidmada halkaa ay ka sii abuureen ayaa weli taagan waxaanu ogeysiinaynaa madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga in hawsha halkaa ka timi ay sii alooseen waftidaa laga soo diray caasimadda Hargeysa in badan baanu anagu 3 bilood baanu gacmaha nabadda ku haynay inamadaanu hor joognay iyo dadkaanu hor joognay intii maanta mid waliba anagu qoriga nagu soo fururiyay halkaa wixii ka yimaada xukuumadda Soomaaliland baa qabta degmada xaad ka dhacay iyo hareeraheeda wixii ka dhacay iyadaan dil ka dhicin oo dhimasho ka dhicin oo isku guur ka dhicin ayaanu halkaa tagnay waxaan warto wax ka qabanno cid wax nagala qabato waanu weyn waxay soo waadoba xukun baa ka dhacay habar yoonis iyo cid la wehilisa xukun baa laga gaaray xukunka qaataana la yiraahdo anigu waanu filin wixii noo ku markhaatina way leedahay habar yoonis baa nooga markhaatiya waxay ka socon weydi reerkaanu tolka hannahay ee aanu dalka wada degannahay iyo xukuumadda oo fulin weyda go'aamadii markaanu qaybteedii qaadanay qaybtoodii ay qaadan waayeen fuliyey waxay wadaanba dil bay ku geysteen dilkay markay ku geysteen haddana waana la xukumay waxna la yidhi wixiina ciidamadiina ka qaada goobta waanu ka qaadnay markaanu ka qaadnay ciidamaha lagu abuuray oo lagu aasaasay oo weli alaan haysta oo ka dawladda ee taga xabadu qaadanaya oo ka shicibka ee taga xabadu qaadanaya annaga dadka deegaanka yaala weli alaan xabad baa ku socota xukuumadda haddaan u sheegnayna tallaaba ay ka qaaday ma jirto waxna la leeyahay waxbaanu qabannay aanu qabannayna ma hayno waxaan markaasaa kiliibkaa lagu kalifay inaanu dawladda dhexe iyo dawladda sareba ogeysiino oo wasiirka arrimaha gudaha ogeysiino ee amniga iyo ummadda kaleba ee dalka nala degan sidaa darteed waxaanu leenahay oo weli aanu halkii baanu fadhinaa waana ku war sugaynaa cid baanu dilayna ma lihin cid baanu maagaynaana ma lihin waxaanu leenahay waxaa laga qabto hadday cid xidheen oo idhaan waayeel baanu xidhnay anna waayeel xidhana ma odhan ayaamay halkaa ku hayeen dee soo daayey hadday soo daayeen waxay waajibka lahayn ha u direen shalayna waanu u sheegnay weli aanaan waa ku sugayna waxyaabahaanu sheegayna haddaana jirin dee waa ma jirto laakiin annaga markhaataan nalokayo habar yoonis baa markhaati noogaa habar yoonis baa markhaati noogaa habar yoonis hadday tiri wax qabtana wixii ay go'aamo ama amaamiir soo saartay
cid fulisa bay weyday waana joogaan waana caddaynaynaa haddii hargeysa cid laga soo dirayna wasiirkii hore golaa degaan wasiirkii degaanka iyo reer miyiga hore u yimi qabasho iska daa anagu kaayo isku sii dhuftay waxyaabo dhaawacyo ka weyn buu noo sii geystay magacyuu qaaday wixii uu qaadayna wuu fuliyey taa dambe kama lihid waxaan u leenahay waan weli weytaanato halkeediiba joogta wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga iyo ciddii kale ku shaqa leh iyo madaxweynaha iyo ciddii kale ku shaqa leh waxaan leenahay arrintaasi halkeedii bay taagan tahay waxaa laala wax laga qabtana ma jirto wixii ka soo socdaa waxaa laga qabtaa aan u leenahay haddii waayeelkaa la soo daayana de ha loo diro ay ku lahayenoo hadday gacan ku dhigle ahayd iyo hadday kuwii dhaca haystay ahayd iyo kuwii goodgala hadday ahayd dee halkii bay tuban yihiin oo qoryihii ku haystaan waxaa laga soo qabto waanu sugaynaa wabillahi tawfiiq maanta shirkan jaraa'idi wuxuu daaran yahay warbixin iyo garnaqsi annagu cidna durumayno weligeed bareer waa isleen jireene haddii meeshaa la isku qabtay oo nin ku dhintay waxaa ka dambeeyey tiraba 13 dhacdo oo hal dhinac ka yimi waa noo qoran yihiin garooshiyo kama iman ciddii geysatay dilka 13 kaa dhacday ee ka dambeeyey ee afduub leh ee jidgoyn leh ee rasaasayn leh ee gaadiid la hor istaaga leh ee geel la dhaca leh ee raggii geelooda la dhacay 2 casho kadibna la rasaasiyey la handaday leh ee warbaahinta waxa weeyaan maaga iyo dagaalka iyo cayda ka soconaya leh jiruut waana waxba kama qaban dawladina waxba kama qaban maalinta wax dhaceen ilaa iyo maanta reerka Musuturu waa joogaa qof quriga qabiil midna waxa laga ma sheegan eraxun kama soo bixin gacan xunna may qaadin dawladdu laba wafti bay soo dirtay wafsigii geel jire meesha waxba kama qaban laakiin eedayn ayuu delatay wafsigii ka dambeeyayna waa orday waxsan ma qaban go'aankii ugu dambeeyay ee waftigii dambe Cabdirashiid Magaalo iyo saraakiisha ciidanku qaateen waxa ahayd aaga laga mamnuucay gurashada dahabka ilaa marasooyinka yaala in la qaado oo mid la geeyo kiiba la isla gudoontay 13 ka dhacdo raggii geesto 30 nin ka badan oo listadooda ay haystaan mid kama soo qaban cidii wax dishay may soo qaban go'aankii u dambeeyay ee lagu kala tagay ee ahaa in la qaado ilaa marasooyinka oo la geeyo mayd rag badan baa hadlo wax badan ka soo hadlo waa la warrama asaan ku daraya biraha yaala xaad hoosteeda ee dhagala la geeyay oo iyo buurtan sinteeda la geeyay buurta xaad ee la yiriyaan laga dahabaysan labadaas markay saaran yihiin 200 inaanay hubaysan ee jabhada meesha ku jira ee ka bixi maayaan sababtan uga baxeen waxa weeye dahabkii iyo birtii ambeersadii bay isla heleen meel looma socdaan inta waxa noo dheer maalintii wax dhaceen ilaa iyo maanta dariigal baanu hayn waana joogno waa sugayn maanan diidin wax go'aan oo dawladda ka soo baxay ama ka soo baxay xagga Habaryoos warwarka waxaan ku gabagabeynayna saraakiisha la leeyahay 3 ciidan bay isku maamulaan waa ciidankii badda oo reer u badan waa ciidan beeleed waa ciidamo ajaanib oo loogu soo marmarsiyo biraha ka shaqeeyaan 3 laabadan baa isku maamula dawladdu wax ka qabato hadalka waxaan ku soo ururinayaa meesha waxa laga qaban waba looga sii darayo amnigu ma sugna qodeer iyo cod gaaban waxaan ku leenahay war waxba kama qaban karno oo inamadii aanu 3 bilood hor taagnayn waa naga soo fakaraya wada walba waxaa jooga 10 inoo ku filan inay xidhaan dawladdu wax kama qaban reerkii khaladkaasi ka yimina garooshiye kama soo celin wanadan ku wada shaqeyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intii ka dhacday xaad ee siday odayadii iga horeeyay soo sheegeen xaad iyo hareerihiisa ka dhacday buu arrinkan daaran yahay wixii odayadu ka soo hadleen way ka soo hadleen
waxaan ku darayaa waan raacinayaa dil weligii buu dhici jiray waa la isdili jiray dilkii ka dhacay xaad iyo wixii ka dambeeyey ee xaalad la raacsiiyey ciddii dilka geysatay oo aan wax alla wax dilkaa loo soo qabtay jirin dil weligeeduu dhici jiray gacan ku dhiglaha la soo qaban jiray gacan ku dhiglihii dilkaa geystay weli alaan xaad buu joogaa wuxuu la joogaa waana ku ognaa inuu xaad joogo xukuumadduna waa ogtahay tolkayana waa ogyahay xukuumaddu waxay u soo qaban la weyday weli arrin maskaxdayda ka guuxaysa weeye tolkayo waxay u keeni waayeen la tol baa leeyahay oo waa laga heshin jiray oo wixii dhacay waa la soo qaban jiray oo kii wax geystay waa la keeni jiray waxay u keeni waayeenna waa arrin weli madaxayga ka guuxaysa haddaanu anagu nahay reer mise turwaan nahay arrinkaa 3 bilood 2 bilood buu imika dhacsanaa sidii aanu soo xakamaynaanu weli xakamaysanaa wax fal aanu ka geysanay ama ka taagnay ama aanu naga xumaadayna ma jiro weli alaana bartaasan ka taagnaanayna ilaa iyo aanu ka quusano ama aanu xukuumad ka quusano ama aanu habar yoonis go'aamada ay soo saartay cid fulisa intaanu eegayno kuwii hore fuli waaye madaxweynaha iyo jamhuuriyadda sare waxaanu gaarsiinaynaa aanu u gaarsiinaynaa waa arrintii u dambeysay annagu nabadgelyada gobolka waxaanu u haysanaa inaanu ka nahay qayb libaax waana ka nahay labadaa bilood haddii falkaa ay tahay hadday kuwa ka horreeya tahay reerka laguma xanto reer rabshadeed weli alaana waanu u guntanahay inaanu nabadgelyada ilaalino labada gabcoodna waanu ku haynaynaa inta aanu sugayno arrintaas ama xukuumad ama muslim kale inta wax ka qabanayaan waan gacantaan ku haynaynaa dhulka dilku ka dhacayo jibriil turaade male nimankaan tolkana waa dhulaanu wada leenahay waa niman dhulaanu wada leenahay wey dhulka ay maalin walba tv-ga ka hadlayaan ay leeyihiin haddii alla ku cid kale maxad leenahay cidda dhulka leh ee ku nool waa annaga hadal nin iska yidhina dhul anaga qaadi maayo dhulka annaga iskale wixii aanu leenahay cidna uga hebaysan mayno cidna uga jawaabi mayno waa dhul aanu degannahay wixii aanu xad leenahayna iyaga iyo ummadaha kale islaamka tolkaaba dee kuwa kale deegaanka ay dariskaan nahayna dee xadba waanu leenahay iyagana xad waan leenahay waqtigeeday iman doontaa waqtigeeda bay iman doontaa laakiin dhacdadani maanta waxay ku xisaabsan tahay waanu ka hadlaynaa oo aad uga qaylada ugu diraynaa warbixinta dheer ugu diraynaa maanta waxa weeye dilka halkaa ka dhacay waxa weeye aftuubka ka dhacay waxa weeye jidgooyada ka dhacday waxa weeye geel dhaca ka dhacay iyo aan midna waxba laga qaban rag baa la aftuubay rag baa la dilay jidgooyaa la galay